السلام عليكم أصحابتا kusoo dhawaada English with Naja. Maanta waxaynu baranaynaa present continuous tense. Dadka qaar ayaa waxaad ka maqashaan grammarka muhiim maaha, grammarka waa boring, grammarka Englishka uma fiicna. Laakiin waxaad ogaataan asxaabay sir badan siinaya mar kasta oo clear noqdo grammarkaaga waxa clear noqonaya ku hadalkaaga. Okay, ama communication-kaaga. Marka today I'm going to show you how to correct your sentence and how to avoid mistakes. Maanta waxaynu ogaanaynaa present continuous-ka marka la joogo siyaabahaad u dhaqmi kartid iyo siyaabahaad u hadli kartid. Marka channelka inoo like garee, subscribe-tana inoo saara, aad ayaad u mahadsantihiin. Soo dhawaada. Present continuous tense-kaas habay waxa weeyaan waa dhacdo hadda soconaya marka macnaha guud baynu ka qaadanaynaa. Waa dhacdo hadda soconaysa waa progressive tense. hadda la wadaa way soconaysaa. Qaacidadeed waxa weeye waa subject waxa weeye waa cidda ficilka samaynaysa. Hadday cidda ficilka samaynaysa tahay he iyo she iyo it waxa raacaysa is. Hadday ay tahay waxa raacaysa am. Hadday tahay they you iyo we waxa raacaysa are. Sidoo kale verbka ama ficilka waxaa lagu darayaa present continuous-ka ing. Sidoo kale waxaa ku jira object ama ficilka wixii lagu dul sameynaya ficil sameeyay. Okay, aynu isla eegno haddaba tusaalayaashii. Sidan ay tusaalayaanu ku bilaabmaya waxay tiri gabadhan what are you doing? Maxaad qabanaysaa? Wuxuu yidhi I'm lifting weights. Misaab ma kor u qaadaya. Yani haddaan wadaa waan ku guda jiraa waa present. Waxay tiri that's great way fiican tahay. Okay. What about you? Waxa weyn adiguna maxaad what are you doing? Adiguna maxaad qabanaysaa? Okay, waxay tiri I am doing some stretching exercise. Xoogaa baan iskala bixinayaa bay tiri. Wuxuu ku yidhi awesome, keep it up. Keep it up oo waxa weeyaan sii wado markaa baleen sila dhegaysano iyaga wada sheeg. What are you doing? I am lifting weights. That's great. What about you? What are you doing? I'm doing some stretching exercises. Awesome. Keep it up. haddaba sidaynu soo sheegnay present continuous-ku waa dhacda hadda soconaysa oo gacanta lagu hayo ficilkiisana waxaa lagu dara ing. Okay, teer hooyadeed waxay ku tiri what are you doing? Maxaad qabanaysaa? Waxay tiri I am making breakfast with yani gacantay ku haysa waxaa samaynaya quraacdi. Teer waxay tiri I am hungry. Waan gaajoonaya. Okay, what is your dad doing? Aabbaha muxuu qabanaya yani hadda. Waxay tiri dad is washing his car. Wuxuu maydhay gaadhigiis. What's your brother doing? Walaalkaa muxuu qabanaya? He's playing with his puppy. Wuxuu dhaliyaari eygiisi. Where is your grandmother? Meelayda. What is she doing? Maxay qabanaysaa? She's washing the dish. Waxay dhaqaysaa weelkii. What are you doing now? Wait, maxaad hadda qabanaysaa? Okay. Waxay tiri I am chopping a cucumber. Waxaan jarjarayaa qajaarka. I am making salad as well. Sidoo kale waxaan samaynayaa salad. Salad is good for health. Wuxuu fiican yahay caafimaadka. Where is your grandfather? Where is grandfather? May I want to play with him. Waxaan doonayaa isaga la ciyaaro. He's watching the TV in the living room. Wuxuu ku daawanayaa TV-da qolka fadhiga. Okay. What are you doing? I am making breakfast, sweetie. Yummy. I am hungry. What is your dad doing? Dad is washing his car. What is your brother doing? He is playing with his puppy. Where is your grandmother? What is she doing? She is washing the dishes. Mom, what are you doing now? I am chopping a cucumber. I am making salad as well. Salad is good for health. Mom, where is grandfather? I want to play with him. He is watching TV in the living room. He iyo she iyo it waxaa kaleetaa asxaabay is they iyo we iyo you-na waxaa kaleetaa are diidmadeeduna ama negative-keedana not baan raacaya. Okay, aan intaan sila eegno tusaalahan kale. Are you listening to music? Ma waxaad dhegeysanaysaa music? No, I'm not. waxaad oran kartaa I'm not listening to music. Ma dhegeysanin music. Where is he going? Xaguu aadaya? Where is he traveling? Haduu safraysaa? She's not traveling anywhere. Meel looma safrays. Marka intaas aynu kusoo gabagabeynaa asxaabay maanta ugu dheeraada casharkii. Salaam calaykum.